السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan idiin soo gudbinayaa qiso cajiib ah oo xikmad leh cinwaankeeduna yahay marwadii la jeclaa ee dibka qoomamaysay. wuxuu si aad ah u jeclaa xaaskiisa, waxay haysteen 2 carruur ah. wax kasta uu awoodo wuu siin jiray, balse xaaskiisu marnaba maqsuud kuma ahayn. inkastoo ninka uusan taajir ahayn, haddana wuxuu la wadaagi jiray wax kasta uu heli karay. hadduu u soo iibiyo dhar, waxay ku oran jirtay waxan waa wax layta oo mar hore laga baxay. ninku uu u dhoolla caddayn jiray xaaskiisa, wuxuuna ku oran jiray maalin ayaan taajir noqon doonaa, waxaana ku iibin doonaa dhammaan waxyaabaha qaaliga ah ee aad u baahan tahay. haweenaydu marnaba teleefon kama wici jirin ilaa mar ay wax ka codsanayso maahe. haddii uusan fulin karin codsiga, waxa kaliya ay samayn jirtay waa inay muranto maalmo, marmarra dagaalanto. galaab isagoo shaqadii ka soo rawaxay ayuu u soo iibiyey 1 kiilo oo hilib ah, isagoo faraxsan oo isleh reerkaaga caawa casho fiican u geey. kolkuu gaaray guriga oo uu xaaskiisii tusay, waxay ugu jawaabtay nin baad sheeganaysaa oo 1 kiilo hilib ah ayaad guriga keenaysaa. masaliid baa taal iyo wax kale oo lagu daro. kadibna bannaanka ayay ku tuurtay hilibkii. ninkii aad buu u carooday, balse wuu isdejiyey, wuxuuna is yidhi marnaba hoos ha u dhigin jacaylka aad reerkaaga u qabto. maalin maalmaha ka mid a ayuu xanuun badan ka dareemay cagta bidixda, kadibna buro weyn ayaa ka soo baxday. 3 bilood kadib markii ay aad u weynaatay, xanuunkiina ku batay, ayuu cisbitaal tegey, waxaana laga helay kansar. wuxuu ahaa sabool aan awoodin daryeel caafimaad oo wanaagsan. inkastoo aad u xanuunsanaa, haddana wuxuu isku dayey wax kasta uu awoodo inuu reerkiisa quudiyo. 2 sano kadib xaaladdiisii way ka sii dartay, waxaana la dhigay cisbitaal. lugtii ayaa qalliin lagu sameeyey oo laga jaray, laakiin nasiib darro waxay ahayd xilli dambe fayraskii wuxuu saameeyey jirkiisa oo dhan. wuxuu u yeeray xaaskiisii si uu ula dardaarmo, wuxuuna ku yidhi xanaanee oo daryeel carruurteenna. waxaan dareemayaa inaan adduunkan ka socdo, allah idin dhowro. wuxuu neefsaday neeftiisii ugu dambaysay ee uu adduunka kaga tegey, wuuna geeriyooday. haweenaydii iyo 2 carruura waa ooyeen, maalmo ayay barordiiq ku jireen. 2 bilood kadib ayay xaaskii booqatay qabrigiisa, wayna ag fadhiisatay iyadoo leh erayadan: jacaylkaygii, wax kasta oo wanaagsan oo aad ii samaysay, waxaad iila dhaqantay si sare, laakiin wixii keliya aad iga helaysay waxay ahayd muran, dagaal aan dhammaad lahayn. marnaba ma garawsan muhiimaddaada iyo jacaylkaaga ilaa hadda oo aad naga tagtay, goortii aan aniga noqdo qofka laga rabo cuntada, dharka, biilka, waxbarashada iyo waxyaabo kale oo badan. waan xasuustaa goortii aan tuuray kiiladii hilibka ahayd, laakiin hadda ma hayo xitaa nus kiilo meel aan ka helo. dhammaanteen waan tabaynaa maqnaanshahaaga hadda. gabadhaadii yarayd oohin ma joojiso, iyadoo i weydiinaysa aabbaheed. allah kuu naxariisto. haddaba daawade, had iyo jeer ku qanacsanow oo ka mahadceli waxay lagu siiyo, hadday yar tahay ama weyn tahayba. jacaylku ma aha wax badan inaan haysanno, balse waa sida la isula wadaago waxa yar ee la haysto. kuwa xiriirku idinka dhexeeyo, kula hadal mar kasta hadallo wanaagsan inta ay nool yihiin. qofna ma garanayo xilliga uu dunidan ka tagaayo. marnaba ha ku ciyaarin dareenka qofku jecel, ha dhaawicin qalbigooda, sababtoo ah hubaashi maalin intaad baraarugto ayaad garan doontaa inaad dayaxa weyday kolkii aad xidigaha tirinaysa.